Soomaaliya waxay mar qura qabsatay indhaha caalamka iyadoo si lama filaan ah u qabsatay sababo dhowr ah kadib markii maraakiibta, diyaaradaha casriga iyo qalabka kale ee dowladda Turkiga la geeyay gudaha dalkeeda. Wadamo dhowr ah ayaa arrintan falcelin xooggan ka sameeyay iyagoona sheegay in qaadawa ay ku noqotay marka la eego Soomaaliya iyo Turkiga cilaaqaadka ka dhexeeya iyo heerka uu gaarsiisan yahay. Diyaaradaha F-16, diyaaradaha Attack, Bayraktar, maraakiibta casriga ah ee dagaalka kuwa shidaalka qoda iyo sidoo kale qalab kale oo ciidamada lagu tababaro ayay dowladda Turkiga geysay gudaha Soomaaliya. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa sii kordhiyay cilaaqaadka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga, waxay taasi keentay inay sii kordhaan wadamada inta fara badan ama wadamada fara badan ee caalamka arrimahaasi ka falcelinaya. Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay qaado tallaabada ku aadan dhabaha lagu qaadayo cunaqabataynta muddo dheer saarneed, taas oo qaaday xeyndaabkii adkaa ee Turkiga ka hor istaagi lahaa in diyaaradaha, taangiyada iyo maraakiibta casriga gudaha Soomaaliya iyo biyaheedaba ay soo gaaraan. Dhoolatus ay si wadajir ah u sameeyeen ciidan Soomaali ah, Turkiga uu tababaray iyo ciidamada dalkaasi ayaa waxa uu noqday waxyaabaha ugu badan safxadaha caalamka lagu qoro waa marka la eego dhanka warbaahinta maqaalada arrintaasi la xiriira. Warbaahinta Xuuraansi waxay isha soo marisay warbixinadii ugu dambeeyay arrimaha laga qoray iyadoo ay jiraan warqado ay isdhaafsadeen dowladaha Mareykanka iyo Turkiga, taas oo la xiriira in xukuumadda Washington ay dhibsatay in diyaaradaha iyo qalabka casriga ee Turkiga ee Soomaaliya yaala dhoolatusyo lagu sameeyo mar walbana caalamka la tuso. Hawada Soomaaliya ayaa waxaa la keenay dowladda federaalka Soomaaliya laguna wareejiyay qalab casri ah oo lagula socon karo xitaa haddii diyaaradaha raadarada ay dansadaan ama isgaarsiinta ka warqabkooda ay dansadaan, taasoo keenaysa in mar kale la arko diyaarado si dhuumaaleysi u soo gelaya gudaha Soomaaliya. Dhanka badda waxaa la dhigay maraakiib casri ah oo dul saaran diyaarado iyo doomo nooca dheereeya ah. Saddexda markab ee ugu weyn Turkiga ayaa jooga biyaha Soomaaliya, kuwaas oo la sheegay inay adkeynayaan amniga goobaha shidaalka laga qodayo iyo masaafo ahaan inta ka fog si looga hortago isku dayada kala duwan dhinacyada qaarkood ay wadaan oo ay ku doonayaan inay ku duugaan ceelasha shidaalka laga qodayo Soomaaliya, sidoo kalena ay dib u soo aasaasaan kooxo burcadbadeed ah si amniga dalka loogu tilmaamo inuu yahay mid faraha ka baxay. Ha yeeshee, Turkiga ayaa arrintaas diiday, waxaana uu tilmaamay in xilligan la joogo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo arrimahaasi looga falcelinayo, iyadoona xukuumadaha Muqdisho iyo Ankara ay bilaabeen in la ballaariyo isbahaysiga ka dhex jira. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu dalka Turkiga aado, halkaas oo kula kulmi doono dhigiisa Erdogan. Waxa uu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sameyn doonaa tallaabooyin xooggan oo la xiriira horumarinta dhanka diblomaasiyadda ee siyaasad ahaan Soomaaliya iyo Turkiga la isugu soo xiri doono. Markan Turkiga wuxuu muuqdaa in kaalin dhuuban uu ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya maadaama dhanka badda, hawada iyo dhulkaba kaalin weyn uu ku yeeshay marka la eego ciidan ahaan. Ciidamo fara badan oo kuwa dhulka dalka Turkiga ayaa ku sugan Muqdisho iyo deegaanada duleedkeeda, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca xeebta, halkaas oo la sheegay in laga dhigayo saldhig dayax-gacmeedka laga tuurayo, sidoo kalena laga hirgelinayo mashruuca lagu dhisayo garoonka cusub ee Muqdisho loogu magac daray, kaas oo mar hore dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in la dhisi doono, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna dhagax dhiga uu ku sameeyay. Mas'uuliyiinta Turkiga ayaa marka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Erdogan ay kulmaan kadib waxaa la sheegay in uu ka dhalan doono safar degdeg ah oo madaxweyne Erdogan uu Soomaaliya ku aadi doono, taasoo muujinaysa howlaha diblomaasiyadeed iyo dadaalada kala duwan si loo sii xoojiyo qorshaha istiraatiijiyadeed. Geesta kale, Sacuudiga, Masar iyo Turkiga ayaa ku baaqay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, iyagoona sheegay in xilliga la joogo ay dhinac taagan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa ay diideen ganafkana ku dhufteen faragelin walba oo lagu sameeyo Soomaaliya, iyagoona tilmaamay in xilligan la joogo aanay habbooneyn in la fargeliyo Soomaalida dhexdooda, wixii dhexdeedana iyagu ay ka heshiin karaan. Turkiga ayaa u muuqda in markan xooggiisa soo saarayo geeska Afrika, isagoona doonaya dana guud oo la xiriira in ay Soomaaliya ka soo kabato dhibaatooyinka xooggan ee soo gaaray iyo danaha kale ee Turkiga sida gaarka u wata, laakiin ku lifaaqan heshiisyo iyo siyaasado kala duwan oo dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga kol hore
ay wada galeen, taas oo haddii miro dhalkiisa la gaaro ujeedada ugu weyn uu noqon doono in Soomaaliya ay dhinac istaagto wadamada horumarka ka sameeyay dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansiga ku daawo.